دكتور جبريل خالد أو طبعا إسقنا برتاي environmental science دمانتين كسر هذا برنامج كان كوبن وحن أقرن سين دورنا دكتور عبد القادر عبد الله الدلف أو طبعا كهل دونا دكتور سودو بالأقرن واحد فافين كوبن كبحسا وحويا حسكا مال العافمد مركورة وحن سلام يا أرض مدخل الجامعة بهذا ميديها أخاطرت إجلاء قيب جلسة برنامجك أي كمديهين دكتور نصر الدين فارح كبار وتخصص كيسو هي public health and epidemiology إيوه مستر محمود خالد جبريل أو environmental specialist أو environment كتخصصي أنا جانا خريبة الله يزين سوشيال ودكتور عبد القادر عبد الله يوسف أنت كذب وحن مهد علينا يا بهذا ميديا ولا سلمان وكسعده جامعة سيتكوب يلمان بهذا ميديا هنودا دهنيسا وحن لي ومهتنتهين وحكلو قيمة وين له عد الله الله وبالشدة community جودهان للبلدان كارهان أرضا عاوة هرتين فردا وكترسان جامعة سيتكوب وبرنامج كان قيمة وين ويلس أم فاليوجا أنت كذب one healthy day ما محي وجدديسو بالويدية one healthy day وحس كهال مالين عافمات الدنيا كدعة وهنا كدعة سنة كستا بيش نوفمبر صدح ذا سيدا دراد جامعة سيتكوت وح أي قوان كوجارتي إن كم من نقطة هورين أو قبنجرتي إن سيكور ديسو عيقلنتا عافمات كبلشة جودهان وعيقلنتها سو صدح قيبض بونه هالتدي كهلا مروح كهلا environmental health أو ديجان كبو كهلا number 2 وحلاقها اللي animal health حيوان عافمات غبا مركز صدح هذا وحلها ليا human health أو ecosystem نولش وواحد سكحرا وقاب كايكوسيستم كايا لو وجهيا marka xuska maalin caafimaad oo adduunka laga qabto waliba wadamada imkaaniyaadka haysta ee xagga dhaqaalahooda hore uga mar leeyahay developed countries-ka ama more economical countries wadamada xagga dhaqaalaha hore uga maray deegaankii iyo xoolihii iyo waxay isu keenaan dadkii bay isu keenaan marka halkaas ayay wax badan oo ma garanaysaa maalintaas ku xusaan بيئات green إن له هلا تاسون حيو بهان توقت بدني دلال بدني لجليو أنت أصلاً كبحياة أدو مسيح دكتوركو سيدا أول شيء طبعاً برامج كنا بانل كنا وترينجل طبعاً وحكى لي دونا عافماتك ديجانك يسودو كلا عافماتك هيومنك أما بني آدمك إيوه عافماتك إنه كيما طبعاً سونيس ديسيس عافماتك حولها وطبعا حولنا ومهم ما دام يجران حنونو دنك حولنا كويمات دكتور نصر الدين ayaa soo dhaweynaya oo ka hadlaya isagu xanuunada inoo ka imaanaya xayawaanka doctore bal ugu reyn maxay yihiin xanuunada inuu ka qaadno xayawaanka ama xoolaha inuu ka imaado dhamaan marti sharafta ardayda maamulka jaamacadda ugu horeeya gudoomiyaha iyo shaqaalaha kala duwan ee goobta ku sugan macallimiinta ay kala qayb galaysa banalka waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu bacda salaan anu waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo zoonotic disease-ka waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo waa xanuunada inooga soo gudba xayawaanada marka xayawaanku laba qaybood buu isugu jiraa qayb waxaa loo yaqaanaa duurjoog qaybna waxaa loo yaqaanaa dabjoogtu waa xayawaanada aan isticmaalno in inagu faa'iido ka helno sida xoolaha sida kuwa kale ee u isticmaalno rarashada oo kale ama beeraha oo kale ku falanno qaarna waxaa loo yaqaanaa duurjoog waa waxa duurta ku jira marka xanuuno ayaa inooga yimaada xanuunada waxaa loo yaqaanaa zoonotic diseases marka waa qayb ka mid ah xanuunada la kala qaado oo inooga soo gudba xayawaanka ayaa afka qalaad loo yaqaanaa zoonotic disease-ka waxaana ka mid ah way badan yihiin marka aad bay u badan yihiin halkana kama hadli karno inta ugu caansan baan ka hadli doonaa ee waxyaalaha aadka dhibaatooyinka aadka u badan inagu keenaya
ka koobaad waxa xanuunka loo yaqaano raybiska marka xanuunka waxa laga qaadaa bisadaha iyo ayda laga qaadaa oo haddii uu ku qaniino oo kale ayaa laga qaadaa badanka marka waa xanuun aad u daran daawo male horta wax dawo uu leeyahay ma jirto laakiin wuxuu leeyahay ka hortag buu leeyahay oo tallaal buu leeyahay qofka waa la tallaalaa markuu qaniino inta u badan wuxuu saameeyaa habdhiska dareenka ama loo yaqaano nervous systemka marka qofku uu la xaatiraa marka xanuunkaasi aad iyo aad buu halis u yahay marka bulshada waxaan ka wacyigelinaynaa inay iska ilaaliyaan labada xayawaan sida bisada iyo ayga ayaa halis ugu jira marka qofka haddii uu ku dhaco ama xayawaankii la kulmo ama uu qaniino waa in meel goob caafimaad la geeyo si degdega oo tallaalkiisii la siiyo xanuunka labaad ee goobteena ku farqayn doono waa xanuunka loo yaqaano brucellosiska ama brucellaha xanuunkaas wuxuu nooga soo gudbaa dabjoogta waa waliba animaliska xayawaanka anagoo isticmaalno sida xoolahaan dhaqan xooluhu inooga soo gudbaa sida lo'da ariga geela intaasuu inooga soo gudbaa kama maarno ama haddaan Soomaali nahay nolosheennu waxay ku dhisan tahay xoolaha nool bay ku dhisan tahay oo Soomaalba magacu waxa uu ka yimidba wuxuu sheegayaa xoolahan dhaqan jirnay marka uu aad buu u badan yahay waa xanuun ku dhaca inta badan wuxuu ku dhacaa habdhiska dheefshiidku ku dhacaa oo xayawaankii oo aad cuntay hilibkiisii aad caanihiisii cabtay ayaa laga qaadaa badanka ama aad u banbaxdayba aad ka shaqaysid tusaale ahaan dadka ka shaqeeya caafimaadka oo kale ayaa inta badan ka qaada meelaha laboratoriyada ama shaybaadhada oo kale markay shaybaarayaan oo kale hadduu si ku soo gaari karo marka inta badan aad buu u badan yahay waliba kaasi xoog buu noogu badan yahay dhibaatadiisuna aad bay u badan tahay marka waxaan wacyigelin siin doonaa guud ahaan bulshada u banbaxaysa ama ha dhaqato ama wixii ka soo baxay sida hilibka caanaha inay iska furdaamayaan haddii la yidhaahdo xanuunka saddexaad waxaa loo yaqaanaa anthrax afka qalaad ama waxaa loo yaqaanaa kudka waa loo yaqaanaa xanuunkaasina waa xanuun aad iyo aad bulshada ugu badan gaar ahaan waliba xanuunka bulshada dhaqata lo'da ama ariga lo'du xoog ugu badan yahay waliba marka waxaa laga qaadaa inaad isticmaashay xanuun neef oo ku dhacay anthraxku ama kudku caanihiisii oo kale inaad cabtay ama hilibkiisii oo kale inaad cuntay dan waa GI-gu ku dhacaa habdhiska loo yaqaano afka qalaad ama wuxuu ku dhacaa habdhiska dheefshiidka sidoo kale wuxuu ku dhacaa maqaarkan oo ku dhacaa oo nabaru yeeshaa calaamadahaysana waxaa ka mid ah inuu qofku ma tago ama inuu shuban yeesho ama inuu nabaro oo kale maqaarka ku yeesho marka waxaan ku soo koobi lahaa haddii aan ka hadalno xanuunada inaga soo gaara xayawaanka saddexdaasaa inooga koobansan oo aad ugu badan aad u baahsan doctorku runtii sida uu u sharaxay su'aashaas dabcan saan idin sheegnay barnaamijku waa barnaamij triangle oo dabcan deegaanka ayaa isagana dabcan soo gelaya waxaa nala jooga Dr. Maxamuud Jibril Khalid oo isagana environmental science ama deegaanka ku taqasay waxa xusid mudan in ardadu ay note gareystaan su'aalaha ay u baahan yihiin oo paneliska ay weydiin karaan dabcan oo siinayna fursadooda bal Dr. Maxamuud ayaan haat siinayna oo deegaanka ku taqasay Dr. waa maxay marka hore deegaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah marka hore waxaan salaamayaa khiyaarta sharafta leh ee ka soo qayb gashay panelkan sidoo kale waxaan mahad gaar ah u celinayaa asxaabteeda ila wadaagta waxa weeye panelka waxa weeye su'aasha la weydiiyay waa maxay deegaan afka mi baalka wada geliya ma waa maxay deegaan kelmadda deegaan ama environment waxay u taagan tahay place ama meel position meel area afka carab wax lagu dhahaa bii'a baa lagu dhahaa haddii aan si kale u dhigo environment waa meel laga heli karo noole iyo manoole markaan leeyahay noole waxa soo hosgelaya bini aadanka waxa soo hosgelaya xayawaanada waxa soo hosgelaya dhirta manoole markay noqoto waxa soo hosgelaya wax kasta oo manoole ah haday noqoto biyihii haday noqoto hawadii haday noqoto dhagxaantii haday noqoto waxa weeye waxyaabihii kale marka waxa ka dhaxaya relationship saddexdaba manoolaha waxa ka wada labada manoolaha
iyo noolaha waxaa ka dhaxaya relationship meesha uu relationshipkaas ama xiriirkaas kaga dhaxayo oo ay ku herdamayaan ama ay isku dhex jiraan oo meesha ay joogaan ayaa wax loo yaqaan environment labadaas cunsur ama labada elementi isfalgalka isla falgalaan waxa ka dhalan kara laba wax in meeshii ay joogeen oo aan leenahay waa environment inay xumaato iyo inay hagaagto sida caadiga bini aadanka ilaahay markuu nabi aadan abuurayay ilaahay wuxuu quraanka ku yiri wa huwa alladhi ja'alakum khalaa'ifa fil ardi dhulka ilaahay awoodiisa ilaahay inagu inoo dhibay bini aadanka diyan nahay dhulkii la inoo dhibay waxa ilaahay inoo ku sheegay quraayad kale quraana walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum ayad ay yara aanan garanayno macnaheedu waxaan ka wadaa qoraalkeeda macnaheedu wuxuu tilmaamay waxaan idin dejinay dhulka waxaanu idin ka soo saarnay oo idin yeelay wixii aqoodan lahaydeen marka waxa laga ka soo hara bini aadanka ilaahay wuxuu ugu talagalay inay u noqdaan waxa isticmaalaan bini aadanku marka isaga la mid sameyn kara inuu deegaanka hagaajiyo maadaama uu isticmaalayo iyo inuu xumayo taa marka laga yimaado waxa jira mid la yiraahdo deegaan la yiraahdo built environment ama artificial wall waa dhul waxa weeye deegaan dhismeed waa inagu dhisanay hadda magaalada Boosaaso marba waxay ahaan jirtay natural wall dhul dabiici ah oo aan cidina deganeyn cidina isticmaalin oo wax dhibaato aan ka jirin wax hawo wasakhaysan aan ka jirin qashin la gubay aan ka jirin dhul dabiici ah bay mar ahayd waxa weeye maanta waa dhisanay waxa la yiraahdaa built environment ama artificial wall baa waa dhisanay maanta dhismaha aynu dhisanay laba mid ba ka dhalanaysa inaynu hagaajisano meeshii oo ilaashano oo ka ilaalino wax kasta oo waxyeelaya iyo inaynu baabi'ino oo wax u geysano waxa kale oo jirta haddii aan si kale deegaan u dhigo hadda qolkan aynu ku jirno waa qol qurux badan wuxuu leeyahay aysiya ku xidhan maraxada ku xidhan maran qurux badan buu leeyahay shub fiican buu leeyahay daaqad qurux badan baa furfuran inaga farfadhina kuraas qurux badan bay ku fadhinaa this is good environment waxa la dhahaa good environment waa deegaan wanaagsan weeye taa marka laga yimaado inteena tan halkan fadhida marwaxadaha baxaya aysiyada daaran isbikarada samaacada bixinaya marwaxadaas hawada ay wareejinayso saameyn bay ku leeyihiin saameyn noocaab ay ku yeelan karaan for example salahan haddii speakerka meesha ugu dambaysa aan geeyo maxaa ku dhici kara waxa jira wax la yiraahdo noise pollution sound ama bini aadamku sidiisaba dhaqaatiirtu way garanayaan waxa jira 20 hertz wax ka badan haddii ay maqlaan maxaa ku dhaca inuu qofkii uu dhigihii ama dilaacaan ama maskaxdiisa si kale noqoto taa macnaheedu waxa weeye inaga very simple haddii aan u dhigo good environment tan ayaa tusaale u ah bad environment maxaa tusaale u ah environment wasakhaysan magaaladeena Boosaaso Thomastai waa maasan yahay dabcan Mr. Jibril waxaan ku noqonayaa Dr. Dilef Dr. maxay yihiin horumarada laga gaaray qarnigan dhanka horumarka caafimaadka qarniga 12aad بسم الله الرحمن الرحيم waxaa yiraahdaa maadaama one healthy day la xuso waxyaabaha la xuso waxa ka mid ah in loo dabaaldego xanuunada faafa for example wadamada dhaqaalahoodu horey uga maray wadamadaas waxa ay gaareen achievements u dabaaldegaan oo eradication ay ku sameeyeen waxa way xanuunada faafa xagee bay remain ku yihiin qaaradaha bay dhibaato ku hayaan waa qaaradaha soo koreeyay ee ka miyiin Asia iyo Africa marka Asia iyo Africa waxay la taagdaran yihiin laba nooc labada noocna waxa la kala yiraahdaa labadu waa CDC laakiin CDC uu kala duwan yahay marka la joogo wadamada horumaray CDC bay leeyihiin waa Central Disease Control oo waxa la controlaya waa non communicable disease waxaanada aan la kala qaadin kuweeba kamid ah waxa kamid ah dhiig karka kamid ah macaanta kamid ah
kansarka ka mid ah lama kala qaado kuwaas laakiin wadamada soo koraya iyaga labaduba dhibaatay ku hayaan xanuunadii ahaa communicable disease control ay ka mid yihiin xanuunada la kala qaado sida xanuunada faafa for example xanuunka la yiraahdo TB oo kaleeto waa infectious disease waa ognahay Soomaalida qarnigii 20aad dhibaato badan buu xanuunkaas ku hayay anagu waxaan garaadsanay iyadoo la yiraahdo qofka marka la habaaray ama waxa la leeyahay TB ku dishay qofka la yiraahdo it means xanuunada ugu waaweyn bay ku jiraan sababtu maxay ahayd dadku aqoon badan ma lahayn xanuunkan ma garanayn dhakhaatiir baartana ma jirin laakiin qarniga 20aad maxaa laga gaaray for example wadamada soo koreeya xanuunka TB simple xanuunada la daaweyn karo ugu fidiyo hadduu qofku yimaado calaamadihii uu sheego dhakhaatiirtu u yimaado waa la baarayaa waan la daaweynayaa marka hadeertan wax apparently maaha wax adduunka dhibaato badan ku haya haddaan u noqono wadamada Mareykanka oo kale waxaa loo dili jiray xanuunkan la yiraahdo gonorrhea ama syphiliska oo xabadda la yiraahdo kaasa waxa u dhiman jiray there are so many people thousands of people have been dead ay u dhiman jiray aqoon la'aan baa jirtay qarnigii 20aad markii dagaalkii labaad adduunka kadib ayaa adduunku isu yimi waxa isu yimi in ka badan 50 wadan baa isugu yimi shirkaas wuxuu ka dhacay Geneva Switzerland ata almata la yiraahdo primary health care waa meesha lagu dhisay kontonka wadan waxay hoosta ka xariiqeen oo wasiiradoodii iyo cabinetkooda markay soo yimaadeen in adduunka la gaarsiiyo marka la gaaro 1990 marka la gaaro markaas dhowr 20 sano dhowr 10 sano meelaha dhowr 70kii 90 waa inaynu gaarno hadaf aynu leenahay waa inaynu helno adduunka dhan laga helo MCH 5 kilomitir ba 1 MCH waa in laga helo achievements-kaas waa la gaari waayay 2000 baa la yiri laga dhigo Millennium Development Goals still adduunyadu wax dhamaata maaha waa wax kala dhiman waa la gaari waayay waa la soo gudbiyay waxa 2015 laga dhigo Millennium Development Goals halka lagu daayay 2015 markii la yimi waxa la yiri may waa in laga dhigo wax la yiraahdo SDG Sustainable Development Goals waa caafimaadku wuxuu ka mid yahay horumarka marka caqabadaha caafimaadku waxyaabaha la gaaray waxa ka mid ah talaalada ama vaccines-ka wadamada horumaray xanuunada iska talaaleen sida malaariyada typhoid-ka xanuunada inaga dhibaatada inagu haya iyaga waxa weeye for example wadamadaas xabad kaneeca marka airport-ka hadii lagu arko intaas oo shaqaale oo carbisan oo healthcare system ka shaqeynaya ayaa jooga waan la qabanaya yaa keenay baa leeyahay kaneecadan ma Afrika nooga timi mise Asia ka timi marka problemskaas dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyin yaani jira oo ay ka gudbeen yaa iska xaliyay marka dadkii baa iska xaliyay maxay ku xaliyeen waa dhaqaalaha wax kale ma human resource-ka ee lahaayeen natural resource-koodii ay dadku ka faa'iideysteen waa la soo saaray waxa weeye shidaalada noqoto hadii macdan noqoto inaga waxaynu ognahay maanta Afrika wadamada waliba geeska Afrika marka Soomaaliya leeyahay Soomaalidu wadamada ugu dihan oo shidaal iyo petrol iyo macdan iyo wax walba ay yaaleen beenna marka waxaan u baahanahay marka su'aalo dhowrayna inaan isweydiino maxaa laga gaaray Soomaaliya waqtigii jirtay for example dawladda ahayd waxa jirtay in small box virus la yiraahdo ayaa keiskii ugu dambeeyay waxa laga helay Muqdisho waxa laga helay nin ka shaqeeya restaurantiyada cuntada lagu sameeyo keiskaas marka dawladda Soomaaliya way qabatay eradication baan la sameeyay hay'adda adduunka caafimaadka u timi World Assembly baa yimi shahaada laga siiyay Soomaaliya inay wadankii ugu dambeeyay ee small box eradication 70kii qaata shahaado inta kadib Soomaalidu saaxadii bay ka baxday marka labadaasaan comparison gareeyo aan isbarbar dhigay xanuunada haddaan ka hadlo iyagu TB-da for example xanuunada aan leeyahay CDC oo Central Disease Control-ka laakiin ay xalin la yihiin maanta adduunka dhan iskaga mid yahay caqabadaha ka jira oo dhibaatooyinka aan wax laga gaarin waxna aan laga gaarin waa iyaga oo for example qofku dhiikar haduu leeyahay haduu joogo ma garanaysaa Afrika iyo haduu Asia joogo iyo haduu joogo Mareykan waa hypertension wax daawo ah uu leeyahay ma jirto waayo caafimaadka waxa
horumarka ama progressionka ugu muhiimsan laga gaaro waa research oo wadamada adduunka horumaray research bay ku horumareen inagana marka waxaan rajaynaynaa in ardaydu ay ka faa'iideysato xanuunada laftigooda raadiso oo su'aalo naga weydiiyaan oo cilmi baaris ka sameeyaan berito ay sidii ku bedeli lahaayeen waxyaabaha dhibaatooyinka jira ama wadankooda ka jira assalaamu calaykum waraxmatullaah aad u baasay doctorku runtii su'aashaas faafahintaas dheer uu ka bixiyay iminkana waxaan ku noqonayaa doctor Nasruddin oo dabcan ka hadlaya isagana xanuunada inuu ka yimaado xayawaanka doctor xanuuno badan baa hadda sheegtay oo dabcan inuu ka yimaado xayawaanka su'aashan ku diiray waxa tahay sidee ayay inuu ku soo gudbi karaan xanuunadaas ka imaanaya xayawaanka mar kale waad mahadsantihiin dhammaantiinba haddaan su'aasha isku dayo jawaabteeda xanuunada inooga soo gudba xayawaanka sidee aan ku qaadi karnaa waan kala qaadaynaa labaan u kala qaadaynaa xayawaan waa mid faa'iido inoo leh iyo mid dhibaato inoo leh ama si kale haddaan u sheegno waa duurjoog iyo dabjoog haddii aan ku horrayno kuwa inooga soo gudbaya duurjoogta waxay nagu soo gaari karaan tusaale ahaan sida bisadda oo kale ama aygoo kale inay ina qaniinaan oo aygii oo infactira ama xanuunkii qaba haddii au ku qaniino xanuunkiisaasuu kugu soo gaarsiinaya ama siyaabo kaleba hadduu la xidhiidho oo gurigaagii hadday bisaddu ku noosho oo kale ood jidhkaagii ama meel ka mid ah meelihii aasaastii ama aasaar wax loo yaqaano alaabta guriga kuu taalla ama furniture oo kale haddii au dheecaanadoodu gaadhaan ood adiguna taabato oo aadna sida systemskii ama jidhkaagii u bambaxo kuwa faa'iidada noo leh ama loo yaqaano dabjoogta aan dhaqanno waa arigii loodii geelii ama ancaamta waxa lagu yidhaahdo ilaahay nimcada inooga dhigay haddii aan cuntadoodii cunno oon hilibkoogii cunno oo xayawaanku qabo ama animalku qabo xayawaankii sida kudkii oo kale ama burseelihii oo kale sidaa uu inagu soo gaari karaa waxa kaluu inagu soo gaari karaa haddii aan caanihiisii cabno oo neef xanuunkii qaba aan caanihiisii cabno oo caanii ayna karsanayn caanaha waa in la kariyo oo la iska karkariyo marka haddii ayna karsanayn neefkuna xanuunkii qabay saasuu kugu soo gaarhaya saddex waxaa kale uu kugu soo gaari karaa in dheecaanadii xayawaanku ama ha ka yimaado kuwa faa'iidada noole xoolaheenna ama kuwa kale in uu galo respiratory-geenna systemka ama neefsigeenna oo hawahaan isagoo hawada ku jira ama air droplet waxa loo yaqaano waa dhibco qoyan hawada ku jira inaad neefsato inaad saasoo kale ku qaadi kartaa waxa kale oo ina soo gaarsiin kara insectiska waxa loo yaqaano afka qalaad cayayaanka oo cayayaanka qaar ba xambaarsan oo noolihii ka soo qaaday marka jidhkeennii haddii qaniinaan haddii guryaheennii ay ku nool yihiin intaasi wayna soo gaarsiinayaan marka waxaan ku soo koobi lahaa afartaa qodob baan ku soo koobi lahaa anuu hadalka sii badinayn aad buu mahadsan doctorku waxa xusid mudan in su'aalaha ka imaanaya ardada ay dabcan ay muhiim tahay maadaama panelka ay weydiin karaan oo dabcan waa inay su'aaluhu ka yimaadaan sida aan sheegnay sida dabcan panelku yahay oo triangle-kaas haday xanuuno ku saabsan dabcan dadka ay weydiinayaan doctorka sidoo kale xanuunada ka imaanaya xayawaanka oo kale sidoo kale deegaanka oo kale haday dabcan su'aalo ay ka diyaarinayaan waxay weydiinayaan khabiirkan deegaanka inay kala joogaan دكتور waxaan siinayna maxamuud jibriil baa ku noqonayna maxamuud waxa ka hadashay dabcan deegaanku inuu muhiim yahay deegaanka sharaxaad baa ka bixisay maxaa sababi kara deegaanku inuu xumaado dabcan bismillah waxa weeye sideeda waxaan ka soo hadlay deegaanka in aynu inagu ka nahay mas'uul ama khaliif aynu ka nahay oo inaga leenoo dhiibay maamulkiisa iyo isticmaalkiisaba marka first waxa koowaad oo sababaya deegaanka inuu xumaado waxa weeye in la waayo wax la yiraahdo bulsho garanaysa qiimaha deegaanku leeyahay ama in la waayo strong leadership dawlad ku dhisan siyaasad ama dawlad ku dhisan waxa weeye belief ama wax la yiraahdo theology ama diin ahaan ku dhisan hadii la waayo كون فرست وحوي واتن كواد وحوا general si guud markaan u dhigo weytaas markaan ka imaado
من haddii la waayo cid deegaankii garanaysa qiimihiisa oo maamulna u weyday waxa imanaya marka kow wixii ka dhalanaya waxa koowaad oo ka dhalanaya waxa noqonaysaa in la isticmaalo in la wasakhayo hawadii air pollution wax la yiraahdo hawada waxa siyaabo badan u wasakhooda waxa kamid ah gawaarida waxa weeye exhaust-ka ay sii deynayaan hawada gelinayaan hawada waa wasakhaysaa waxa kale oo soo hosgelaya water pollution biyihii wasakhoobaan biyaha waxa wasakhayn kara waxa weeye in nadaafadooda ama sanitationkoodii la daryeeli waayo waxa wasakhoobaya soil pollution waxa wasakhaynaya waxyaabaha lagu qubayo landfills waxyaabaha lagu qubayo qashimada lagu qubayo bacaha lagu qubayo waxyaabahaas oo dhan waxa loo yaqaanaa pollution waxa kale oo taa markan ka gudbo ku xiga waxa la yiraahdo deforestation ama xaalufin deegaan waxa weeye dhuxusha waa taqaaneen dhuxusha waxa weeye waxa dhir la soo jaray dhir taagnaa oo waxa weeye dhul bilayay oo waxa weeye roob soo jiidanayay oo ay dad harsanayeen ayaa waxa weeye la jaray wax laga sameeyaa dhuxul xaalufintaas deegaanku ku xumaada waxa weeye roobkii baa la waayaa waxa la waayaa meel la harsada la waayaa waxa la waayaa dhirtu waxay kaydisaa waxyaabaha pollution-ka in hawada ku sideena ayay absorb garaysaa marka markii la waayo dhir deforestation ku dhaco waxa weeye waxa wasakhoobaya deegaankii waxa kale oo imanaya oo soo hosgelaya wax la yiraahdo over exploitation of natural resources waxyaabihii dhulku deegaanku uu dabiiciga ku ahaa in si xad dhaaf loo isticmaalo tusaale ahaan in waxa weeye la gurto dhirta wixii ka baxayay oo aan loo meeldayn ama lees oran maxaynu u baahanay bari ka maalin in ciidii waxa weeye si qayru xad dhaafa loo beerto oo dhulkii looga dhigto waxa weeye dhul wada beeraley ah oo dhulka loo waayo meel si natural oo dabiici ah u taagan oo u hadha taa marka gudbo waxa soo hosgelaya waxyaabaha deegaanka wasakhay waxa soo hosgelaya urbanization wax la yiraahdo ama magaaleysiga dhul magaaleysiga magaalo in dhulkii dadkii magaalo iska wada dhistaan oo dhulkii deegaanka lagu tunto tusaale ahaan hadda ka soo qaado kale magaalada Boosaaso waxa laga yaabaa 1980kiina meel yar halka ku urursanayd maanta waxa xagga meesha mar soo aragnaa macna dhulkii naturalka dhirtii meeday waxa weeye meelihii xooluhu daaqi jireen waxa la mariyay waxa weeye gidaaraha laga taagtaagay oo lagama fakirin waxa weeye waxaan ku bedelo si sustainable ama si hab fog sustainable goals hadda uu sheegay doctorku looma fakirin taa marka laga yimaado waxa jira wax la dhaho climate change ama isbedelka cimilada aad buu uga qayb qaataa in deegaanku isbedelo tusaale ahaan waxaynu inaga dhulkeena Soomaalida laba xilli oo roobaad baan leenahay oo xilliga la yiraahdo guga iyo xilliga la dhaho dayrta climate change waxa weeye uu sameeynaya xilligii waxa u baratay xilli u baratay waaysa gugii baa waaysa dayrtii baa waaysa waxa la arkayaa abaar xad dhaaf oo xil intii lagu yaqaan aan ahayn waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay ka qayb qaataan deegaanku inuu wasakhoobo ama uu xumaado oo noqdo meel aan ugu noolaan karin inta ayaan ku soo koobayo ma hasan yahay maxamed jibriil runtii su'aashaas sharaxaad dheer uu ka bixiyay dabcan ardada ayaa siinaa fursad maadaama panelku uu discussion badan u yahay oo ardada ay su'aalo ka iibaan karaan يا سؤال قبا أرضه سعد كلية midwiferyga su'aasha wadiin lahaa waxay tahay maadaama maalinta caafimaadka adduunka kaliya aysan ku filnayn wacyigelin caafimaad sidee loo joogteyn karaa wacyigelinta sida loo yareeyo xanuunada khatarta ah su'aasha labaad waxa wadiinaya macallin Surdiin wuxuu yiraahday yani bursaalka waxa laga qaadaa hilibku yiraahday dadka badan waxay aaminsan yihiin in laga qaado baradhadii waxyaalo noocaas ah marka sidee looga bixin karaa bulshadeena عليكم أنا قوم مقعد وياها رويدة حسن أو كسعد أو كلية النيرسين سؤال شيء ذو حتى سنة كستو حنا لقى وعي قلية عافمات يا رويدة حسن كلية ذو نيرسين سنة كست سؤال شيء ذو حوايا سنة كستو حنا لقى وعي قلية عافمات وعي قلينت نلاص ميانا بالشدة سيدي وولد بعد سنة هاي محاسبة باي magacaygu waa Marin Muuse Cali kuliyadeeduna waa medical lab waxaan weydiinayaa macallin Surdiin wuxuu yiraahday cayayaanka waxay noo soo gudbiyaan xanuuno sidee bay noogu soo gudbiyaan xanuuno sidee isaga ilaalin karnaa xanuunada ay noo soo gudbiyaan cayayaanku su'aasha labaad aan weydiinayaa waxay tahay sidee sanad walba waxa dhacday cimiladu way isbedeshaa markastana way isbedeshaa waxayna keentaa xanuuno joogto ah sanad walba
sidee marka la isaga ilaalin karaa xanuunada joogtada sida shubanka qandhada barakaatu magacaygu waa xamed jaac daahir kuliyadda farmasi su'aasheedu waxa weydiinayaa professor Nasruddin waxa uu noo sheegay xoolaha aynu dhaqanno in xanuunada inooga soo gudbaan qaarkood waxa weeye tusaale ahaan caanaha geela ama ariga waxa dhici karta inay xanuun xambaarsan yihiin marka dadkii miyiga joogay kuma sheegayaan neefkii xanuunsanaa iyo neef kale wax ma gaban galay way isku soo qaadayaan caanihii neefkii xanuunka qabay neefka caafimaadka qabay qofkii suuqa joogayna caanihi si sax ah u iibinaya qofkii soo qaatay ee bulshada ahaa isticmaalay waxa dhici kartay neef xanuunsan inuu caanihiisa cabay marka bulshadeena sidee wacyigelin looga samayn karaa kuwa miyiga jooga inay ka ilaaliyaan xanuunada xanuunsan inaysan waxba laga soo qaadin ama hilibkooda ahaato ama caanahooda ahaato asalaamu calaykum laakiin wax natiijo la gaarin maxaa sababay su'aashaas haddaad u faahfaahayso السلام عليكم سؤاشاas wacyigelintu ma aha wax mar kaliya la sameeyo ama sanad kasta kaliya la sameeyo laakiin waa wax joogto ah yaa la rabaa inay sameeyaan waxa la rabaa ardayda jaamacadu inay sameeyaan institutionada wasaaradda caafimaadka ayaa roolka waliba mas'uuliyadeeda leh wasaaradda caafimaadka waxa wadanka dhan caafimaadkiisa health systemka ka mas'uul tahay wasaaradda caafimaadku waxay qabataa wax la yiraahdo situation analyzing waa maxay waa xaaladda caafimaadka ee wadanka ay daraasaysaa qorshe ayaa jira health organizationadu waa 3 oo wasaaradda caafimaadka cusbitaalada iyo hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya ee caalamiga ah sida WHO UNICEF saddexdaas markay iskaashadaan waxay keenaan horumar caafimaad oo integrative health la yiraahdo marka jaamacadii laftigooda waxa la rabaa maadaama ay source of knowledge hadeerba shaqada aan wadno waa wacyigelin aan caawa halka u joogno inaanu promote gareyno wacyigelinta bulshada waliba in jaamacaduhu tababar lagu qabto tababaradaas oo ay qabtaan macallimiinta kala duwan ee aqoonyahanka caafimaadka darajo kasta ha lahaadeen kuwaas marka bulshada for example dadka la xanuunsan xanuunada macaanka in seminar loo qabto loo yeero oo marka la baro la yiraahdo rule of diabetic educators doorka uu ku leeyahay wacyigelintu dadku ay ka qayb qaadanayaan qofka macaanka qaba for example waa in uu helo wax la yiraahdo continuous glucose monitoring sidoo isagu macaantiisa isaga monitor gareyn lahaa isagoo independent ka dhakhtar isagoo ku la xiriira laakiin se misna inuu la baro weeye sidoo yaani irbada isugu duri lahaa sidii ma garanaysaa haddii wax dhibaato ay ku yimaadaan dhakhtarku soo report gareyn lahaa waxa kale oo jira wax la yiraahdo adduunka telemedicine-ku ma lihin inagu laakiin se technology baan leenahay waa la sameyn karaa dhakhaatiirta for example oo dhan baa waxay ku bahoobi karaan haddana ma qaana aragteen dhakhaatiir qaar waxay leeyihiin meel application ay leeyihiin dadka ay kaga daaweeyaan maxay xanuunada ama dhibaatada sheeganayaan ay marka appointment u qabtaan online system ba adduunka wax lagu daaweeyaa dadka halkaas live loo soo galaa xanuunka calaamadiiba qofku sheegaa waxa weeye wixii laga qaban karo marka laga daaweyn karo waa laga qabtaa treatment-kii daawadu ku habboonaydna waa loo soo diraa adigoo maanta boosaaso jooga baa dhakhtarka muqdisho jooga ama ka hargeysa jooga ayaa ma garanaysa halkaas aad appointment ka qabsan kadhaa appointment-gaas goorta waxa weeye la yeelan kartaa dhakhtarkii waxa uga warramay kadhaa waxyaabaha ka cabanaysa ama problemska ku haysta isaguna wuxuu ka caawin karo marka ka caawinaya adduunka marka waxa la gaaray technology center maanta waayo social media kor baa loo qaadi karaa wasaaradda caafimaadka hay'adaha caafimaadka sida aragteen ma aqaan WHO waa hay'adda caafimaadka adduunka waa aragteen waxay qabataan wax la yiraahdo price media bay qabataa marka ardayda maadaama arday caafimaadtiin idinku dhageysta si gudbiya hadda share garaysaan u gaaraya boqolaal qof simple ma maanta wacyigelinta u sii kordhin karnaa assalaamu calaykum aad u mahadsanyahay Dr. Cabdiqaadir sidoo kale waxaan siinayaa Dr. Nasruddin si uu uga jawaabo 3 su'aalood oo sigana la weydiiyay ardaydu aad bay u mahadsan yihiin waxa lagu kala faa'iidaa waa weydiinta iyo warcelinta marka aan 3 su'aalood baa la weydiiyay su'aashii koowaad waxay ahayd baradhada ma laga qaadi karaa brucellosis-ka ama brucellaha su'aasha waa maya wax brucellosis ama brucella loo yaqaano lagama qaado baradhada lagama yaqaano ama maaha foodborne disease maaha
waa zoonotic disease macnaheedu waxa weeyaan waa xanuun inooga soo gudba xayawaanka siiba ancaamta nimcooleyda ariga looda geela marka foodborne maaha ama cuntada laguma kala qaado cuntada laguma kala qaado su'aashiis labaad waxay ahayd sidee looga hortagi sidee ay nagu soo gaari karaan xanuunadaas waxay nagu soo gaari karaan tusaale ahaan kuwa duurjoogtii noo kaleetoo kale in xayawaankii ku qaniino oo aygii ku qaniino ama bisadii ku qaniinto saasuu kugu soo gaaraya rabiskii haddii aan degdeg loola tacaalin oo tallaalkiisii aan lagu siin oo rabisku waa xanuun aad u daran weeyaan weliba wuxuu ku dhacaa central nervous systemka waxaa loo yaqaano afka qalaad ama habdhiska dareenku ku dhacaa oo qofka uu lexaatiraa marka si degdega haddii aan loola tacaalin oo goob caafimaad loo geeno tallaalkiisii aan la siin qaniinyadu kugu soo gaaraya ama bisadii ha ku qaninto ama aygii ku ah qanino dabjoogta waa xayawaanada aan dhaqanno ama ariga ha ahaadaan ama sida kuwa kale aan isticmaalno haddii aad hilibkoogii cunto oo neefkii xanuunka u qabay uu ku soo gaarayaa haddii aad caanihiisii cabto oo neefkii xanuunkii qabay uu ku soo gaarayaa waxaa kale uu inagu soo gaari karaa bulshada dad waxaa jira health care workerska waa frontier line baa la yidhaha waa askar oo kale oo xanuunadii iyo innaga inoo dhexeeyaan markaa laboratory shaybaadhayaal midwifayaal umulisooyin kalkaalisooyin ha ahaadaan dhammaan kala reebi mayno xanuunadii bay mar kasta baadhayaan wuxuu ku soo gaari karaa hawadu u raaci karaa way neefsan karaan markaa taana inagu soo gaaraya waxaa kaloo ina soo gaarsiin karaa cayayaanka oo cayayaankaa qaada oo neefkii bay qaniinayaan adigana way ku qaniinayaan ama cuntadii bay kaaga dhici karaanba intaasina waa intay kugu soo gaari karaan su'aashii saddexaad waxay ahayd xoolihii waxaa lagu dhaqayaa miyiga adiguna kama warhaysid neefkii inuu xanuunsanayay iyo inuu caafimaad qabay caanihiisiina waa lagu keeno waa lagaa iibiyey sidee ayaad iskaga hubinaysaa ama aad ku ogaanaysaa horta waxbaa ama dadku waa ku noolaadaan miyiga ama magaalada ku noolaadaane waxay naga mas-uula dowladda ilaahay ka soko markaa dowladdu waa inay leedahay dhakhaatiirtii xoolaha oo wasaaraddii xanaanada iyo xooluhu shaqayso oo laga warhayo xayawaanka caafimaadkiisii ama badqabkiisii laga warhayo oo la ogaado neefkii xanuunsanaya iyo neefkii kale taasi waa mid ka mid oo halkaa waa lagaga hortegi karaa adiga maxaa kula gudboon hadday soo dhaaftay intaa adiga waxaa kula gudboon inaad caanihii iska kariso caanihii inaad iska kariso oo xooga iskaga karkariso iyo hilibkiiba si wanaagsan iskaga kariso haddii aad shaqaale caafimaad tahayna inaad qaadato waxyaabaha isku ilaaliyo ee afka qalaad loo yaqaano personal protective equipments waa gloveska faragashiga afsaarka ama waxaan afka la gashado ama maaskiga loo yaqaano inaad intaa isku ilaaliso waxaan ku soo koobi lahaa intaasaa saddexdii jawaabood ay igaga dhan yihiin aad u mahadsanyahay doctorku runtii sida uu u sharaxay waxaan filayaa dabcan in jawaabihiina ay ardaydu ay haystaan oo ay ka faa'iidaysteen guntii iyo gabagabada barnaamijka ayaan ku sii shaqeynaa goordhow ayaan jecelahay inaan soo gabagabaysano laba su'aalood baa inoo haray dabcan waxaan jeclahay inaan ku noqdo doctorka doctor dalaf doctor waxaa jira caqabado badan oo nololeed baa ka jira dalkeena dabcan nolosha bulshada saameeyay waa maxay caqabadaha dhanka caafimaadka ee maanta aad dhigi kartay dalkeena ka jiraan bismillaah caqabadahaas waa caqabado fara badan caqabaduhu waa laba nooc baa la yidhaahdaa horta sida caadiga caqabaduhu dhibaatooyinku labay noqdaanoo mid waa mid kula nool midna waa mid aan kula noolayn marka challenges of global health waxaynu ka hadlayno horta waa adduunka local kama hadlayno adduunka dhan wuu wada qabaa wuxuu qabaa xanuunada ku dhaca dhimirka ama mental diseaseska leedahay waayo dadka maalinta mental disease waa maalin jirta oo la xuso sanad kasta dadka dhimirka ka xanuunsan adduunkoo dhan bay joogaan oo ku nool yihiin walowba nolosha standardkeeda marka loo eego waxa la yidhaahdo human development index
oo lagu qiyaaso ama lagu cabiro caafimaadka marka laga eego dhinaca economiga dhaqaalaha marka laga eego caafimaadka waxaa lagu qiyaasaa waddanka wax soo saarka uu leeyahay oo gross national products wax soo saarka uu dhoofiyo dibadda marka loo qaybiyo gross domestic products wax soo saarka gudihiisa ayaa waxa soo baxa beer person beer energy beer capita hadduu muwaadin ah tahay qofka muwaadinka ah waxa uu xuquuq ugu leeyahay waddankaas goormuu laakiin waddankaasu waa waddamada dhaqaalaha hore ugu maray waa waddamada adduunka wax u dhoofiya laakiin inagu waa ka duwanay adduun wax uma dhoofino maalintii dowladdii dhexe Soomaaliyeed burburtay baa ugu dambeysay Soomaalida adduunka wax badan u dhoofisa xoolaha marka laga soo reebo iyagana si bareefada loo dhoofiya laakiin markaan dowlad ka hadlayno kaabayaashii dhaqaalaha oo dhan baa burburay hadday burbureen wuxuu saameyn ku yeeshay horta caafimaadkeennii oo waa ognahay maanta caafimaad darrada xaaladda ka jirta waddankeena in aynaan xataa caafimaadkii aynaan haysan imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii lagu horumarinayay technology-giisii dhakhaatiirtii iyadoo aqoon leeyahay misna ayaan haysan qalabkii loogu talagalay marka waxa dhacday in wadamada dariska la aado in Turkiga la aado meelo badan caafimaad loo aado oo waynu kala midnahay dhinaca cusbitaalada marka waxay radaan ka hadlo dhimirkan ku jiray dhimirka marka cusbitaaladaas qaab standard u baahan yahay inta badanna kama dhisna Soomaaliya waa aragnay Soomaalidu waxayba u taqaanaa research badan markaan sameynay research la yiraahdo observational study oo يعني research badan baa laga sameeyay Hargeysa oo kale Muqdisho meelo kala duwan research kaas wuxuu sheegayaa in dadka marka xog laga ururiyo la wareystayba perception-ka ama attitude-ka dadka inay yiraahdaan cilaaj bay u yaqaaneen cusbitaalada dadku waayo waxa jira qaybihii cilaajyada jirta ama waxa qaalib noqday in traditional treatment-ga xaggii diintii oo kale iyadana Ilaahay loo baneeyay in wax lagu daaweeyo laakiin labada laftigeed waxa muhiim ah sidee baynu isugu keeni karnaa dhinacii dhaqanka iyo dhinaca kan technology-ga casriga ama modern medicine-ka la yiraahdo modern medicine-ka waxa la isugu keeni karaa in la helo cusbitaal standard ah oo leh ma garanaysaa qalabkiisii dadkii professionalka oo aqoonta lahaa resource-kii dhan uu dhan yahay haday tahay human mind power haday tahay financial-kii iyo haday tahay cost-kii loogu talagalay iyo ma garanaysaa taasna dawladaha sameyn kara marka saal aligeed gaab badan oo dhibaato ah adduunka dhan ka jira hataa wadamada horumaray wadamada qaarkood way ku fargareeyeen oo dhinacaadaynu ka eegno healthcare system-ka laba loo qaybiyaa private iyo public wadamada ka horumaray healthcare system-ka waxa kamid ah wadanka yar Japan la yiraahdo soo taqaaneen Japan private healthcare system-kana waa sophisticated oo qofku insurance buu ku jira private ka lagu daaweynaya bilaash public-ina uu tagaya bilaash baa loogu daaweynaya waxa kaloo kamid ah wadanka Faransiiska oo kale wadanka Jarmalka oo kale baa kamid ah laakiin wadamada ay dhibaatada ka haysato wadanka Mareykanka oo kale caafimaadkiisu waa qaali secondary health care waa tii aad ogeydeen oo Obama mashruuci uu sameeyay Obama Care secondary health care system buu ahaa waxa burburiyay Donald Trump markuu ku soo noqday isaga burburiyay barnaamijkii marka arrimo siyaasadeedna way jiraan marmar faa'iido bulshooyinka u leh marka caqabadahaas waxaynu kala midnahay adduunka waxa kaloo jira wax la antimicrobial resistant hadaan soo gaabay waqtiguna waa dheer yahay ilaa 12 nooc baa halka yaala caqabadahaas challenge-ga wax la soo koobi karo ma laakiin mal waxaan taabanayaa daawooyinka inaga daawooyin xanuunada qaarkood waxa jira in microscopes ama lagu baaro imkaaniyaad kala duwan sida daraadeed xanuunada afar qaybood oo microorganisms-ka keena qorsoo ma aha waxa kamid ah virus bacteria fungi iyo protozoa afartaas kamid ah afartaas marka waa ilma aragti Soomaaliyeed aragno laakiin marka shaybaar lagu eego microscope waa la arkaa waana la baaraa ardayda shaybaarka inay meesha joogto waan rajaynayaa sida daraadeed waxa dhacda marka daawooyin inay ku noqdaan resistant ama adkaysi tusaale yar baan idin dhiibaya shaybaarka oo kale marka qofka laga qaaday waxa la yiraahdo culture-ku waa wax la beerayo xanuun la beerayo ama kaadiga laga beero ama dhiigga laga beero mid ku doonaha noqdo culture sensitivity drugs baa jira daawooyin marka waxa la soo qaadaya microbes-ki baa qofkii laga soo qaadaya ama isweb ha lagu soo qaado ama si kale ha loo soo qaado ama dhiig ha laga qaado waa la beeraya muddo ayuu ka maqnaanaya qofkaas dhakhtarka marka xanuunka u caal waayo
beeritaankaasuu samaynaya marka antibioticskiiba ayaa lagu taxayaa meesha bakteeriyada ama waxay jeceshahay oo la yidhaahdo blood agar ama manconkey nutrition ay jeceshaha loo dhigayaa kadib bakteeriyada baa lagu beeraya labada casho markii incubator la dhigo laga maqnaado bakteeriyadii markaa riboodka la ribood garaynaya laba qaybood weeye mid sensitive ah oo daawadii ka carartay iyo mid resistant ah oo daawadii u soo dhowaatay markaas daawada ay ka carartay tan ugu khatarsan ayaa dhakhtarku heeleed garaynaya for example antibiotic oo dhan baa halka ku taxan daawada ugu khatarsan waxay noqotay ceftriaxone waana waa daawada ugu dambeysay daawooyinka antibiotic iyadoo heeleed garaynaya halkaas waa multi resistantga laakiin daawooyinkaas way nala sii gashay baahi badan baa inaga jirta inaga waxay noo soo dega daawooyin baa noo yimaada xagga quality assurance-ga adduunka waxa la yiraahdo waa wax muhiim ah ama in la hubiyo tayada iyo bedqabka daawada waxaasuna waxay la socdaan nidaam administrationka laftigiisa waayo quality control wuu jiraa dekada way u yaalaa waa shaqeeyaa kolay suu shaqeydaan halka ma sheegi karo laakiin waxaynu aragnaa bulshada dhexdeeda inay jiraan daawooyin fara badan oo dadku loo keenayo dadku inay iska yimaadaan meel self drug baa la yiraahdaa administration qofku dawo mamnuuc ka ah oo for example leeyna prescription drugs ayuu dhakhtar tagaya qaadanaya wuxuu tagaya pharmacy uu qaadanaya waana mamnuuc adduunka qof ma pharmacy ka tago dawo la siiyo ma jiro haddaad Yurub la xiriirto dadkaaga jira ama meelaha jira aad daawooyin soo dhiibo dawo kuma soo dhiibi kara gudahaya waxaan ku keeni karaa kaliya ama ku soo dhiibaya daawo la yiraahdo OTC ama non prescription drugs waa maxay waa ibuprofen iyo paracetamol iyo waxaas ku keenayaan dawadan kale ta awood uma laha waayo waa la xirayaa qofka bixiya dawada waa xarig waana sharci ba ka yaala adduunka dad shuruuc bay dhigtaan ku dhaqmaan marka problemkaas muxuu keenay in dawooyin badan ganacsiga dawooyinka ugu badan hadda eegto magaalada waa dawooyin soo maaha meel kasta farmasi baa laga furtay qolyahaas anti kuma nihin laakiin problemka jira wax kale maaha yani dawooyinka dadku maadaama ay qaateen waxay adkaysi buu jirkooda ku yeeshay oo microorganismkiina ku noolaa ayaa adkaysi ku yeeshay ama resistant kadibna daawadii qofkii hadhow marka la daaweeyo dhakhtar kale dibadda tago waxa la oranayaa dawooyinka wax ka tari maayeen maxaan ku sameynaa marka waa dhibaato jirta dhibaatadaasna haday wacyigelin tahay iyo haday dood cilmiyeed tahay iyo haddii jaamacadihii iska kaashanayaan institutionada caafimaadka iyo waa wax loo baahan yahay waa tala bixin baan ka bixinaya waa recommend garaynaya intaasaan kusoo koobaya salaam aad u mahadsanid doctor sharaxaadaas dheer doctor maxamuud jibriil ayaan weydiinaya mr maxamuud jibriil su'aashiisii ugu dambeysay dabcan waxa sheegtay in deegaanku muhiim yahay caafimaadkiisa in la ilaaliyo sidee dabcan looga hortoogi karaa sidee loo heli karaa deegaan caafimaad qaba si bulshada caafimaadkeeda loo ilaaliyo jawaabta kooban su'aasha waxa weeye marka koowaad horta in la helo good government dawlad u naxaysa deegaanka iyo dadka without governance wax dhaqaaqi kale ma jiraan hawaye maanta hadna waxaynu hadda hadal haynaa wax la yiraahdo awareness iyo bulshada in macnaha la wacyigelin la sameeyo taas fiican in la sameeyo wacyigelin oo dadka wax weeye wax badan la baro waa loo baahan yahay laakiin yaa dhaqaajinaya dawladda ayaa dhaqaajinaysa marka waxa loo baahan waxa koowaad aan u baahannahay markay noqoto caafimaad iyo markay noqoto deegaan bad qaba dawlad baan u baahannahay xoog leh oo waxa weeye policy iyo shuruuc regulations la timaada kadibna socodsiisa dawladdaas ayaa waxay hadleed garaynaysaa kow in pollutionka la yareeyo waxyaabaha pollutionka hawada wasakheynaya waxyaabaha biyaha wasakheynaya waxyaabaha ciidda wasakheynaya dawladda ayaa shuruudo iyo policy ka dejinaysa ka soo qaad hadda tusaale ahaan bacuhu deegaanka waxay ku hayaan dhib aad u xun waxa weeye xoolaha baa cunaya waxa weeye way baaba'ayaan markay baaba'aan ciidda soo qaasaysan keenay ka gelayaan lama soo koobi karo bacaha caafimaadka bini'aadanka iyo caafimaadka xoolaha waxay u geystaan dawladdu markay dawlad xoog leh jirto shardi waxay ka soo dejinaysaa policy bacaha inaan la isticmaalin waxay keenaysaa wax kale alternative wax kale lagu bedelan karo taa marka laga yimaado dawladdu waxay hirgelinaysaa in la ilaaliyo resource conservation of natural resources waxyaabihii deegaanku xaq u lahaa dabiiciga sida biyaha waxa weeye badda inaan laga qaadan waxyaabaha resource-ka oo kalluunkii xoog loo isticmaalin waxa kale oo ay ilaalinaysaa dawladdu in illegal fishing inaanu ka dhicin badda oo si qayr sharci badaha looga kalluumaysan
dowladda ayaa waxa hirgelinaya wax kasto policy oo deegaanka lagu hagaajinayo dowladda waxay hirgelinaysaa sidoo kale in waxa weeye waxaan ka sheekeynaynaa oo deforestationkii ama xaalufintii in ay ka hor timaado oo policy ka dejisato wixii lagu qofkii lagu arko oo goynaya waxa weeye dhir in uu yaalo sharci ama punishment wax lagu ciqaabayo marka waxa koowaad aan u baahanahay first waxa koowaad haddii aan u baahanahay deegaan bad qaba iyo bulsho caafimaad qabta waxaan u baahanahay dawlad xoog leh oo wixii policy dejinaysa policygiina socodsiinaysa oo dadka gaarsiinaysa oo waxa weeye qofkii policyga ka hor yimaada uu la kulmayo ciqaab sababtoo ah waxa weeye sida caadiga ah bini'aadanku wuu baqaa sharciyada wuu ka baqaa saa darteed innaga muslim haddii aynu nahay waxa weeye waxyaabaha wax jira wax ilaahay inuu ku booriyo oo haddaynu sameeyno ajir ka helayno waxa sidoo kale jira waxyaabo ilaahay uu ina ka reebay haddii aan la nimaadno in ciqaab ka mutaysanayno haddaynu ka tagnana in ajir ku mutaysanayno waxa ka mid ah deegaanka xadiis baa wuxuu ahaa waxyaabaha iimaanku wuxuu u kala baxaa dhowr iyo 70 waxa ugu sareysa kelmadda laa ilaaha illa allah waxa ugu hooseysa imaadatul adaa can at-tariiq wadada in laga leexiyo wax xun wadada in laga leexiyo waxa way deegaanka in la ilaaliyo wadadaas oo inta kaliya maadaama haddii aan markaa belief ama waxyaabo iimaan ama yaqiin qofku uu ku haysto qalbiga uu og yahay waxaas inay xun yihiin bulshadana ay xun yihiin hadduu garan waayo wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo authority xoog dawlad xoog leh oo awood ku maamusha sababtoo iimaan ma jiro inagu marka labada waa la anahay islaam baynu sheeganaynaa islaamnimada kuma dhaqmayno dawlad baynu sheeganaynaa dawladda ma haysano marka waxa meel adag baynu taaganahay waxa weeye laakiin laba quusto bulshada waxay u baahan tahay in bulshada waxa loo baahan yahay awareness initiative community initiative in la sameeyo waa loo baahan yahay aad u mahadsan maxamed jibriil su'aashiisa waxaan weydiinayaa Dr. Nasruddin Dr. waa maxay waxyeelada ay keeni karaan xanuunada ka imaanaya xayawaanka sidee dadku uga hortagi karaan labada su'aalood haddii aan hore jawaabteeda bixiyo iyadoo kooban oo hadal kala badinayn dhibaatooyinka inaga soo gaari kara haddii ay bulshadeena ama inoo soo gudbaan xanuunkii maxay ina gaarsiin karaan ugu horreyn waxayna gaarsiin karaan dhimasho oo qofkii maxay ku sababayaan inuu dhinto markuu xanuunku ku dhaco oo adduunyada markii research la sameeyey waxaa la ogaaday 2.7 milyan inay u dhintaan zoonotic diseaseska sanadkiiba markaa dhimashay qofka ku sababi karaan dhibaatada labaad ama waxyeelada labaad ayna gaarsiin karaan waxa weeye economic loss waxa loo yaqaano dhaqaalihii baa burburaya laba dhan buu ka iman karaa dhaqaalaha burburaya xoolaha waa il dhaqaale haddaan nahay weliba Soomaali ahaan markaa neefkii hadduu xanuun ku dhaco xoolihii naga dhacaan zoonotic diseasekii waxaan ka ganacsanaa waan dhoofinaa dibaddaan u dhoofinaa markaa yaa inaga iibsanaya neef xanuunsanaya cidna inagama iibsanayso markaa dhaqaaliheennii hoos buu dhacaya waa waxyaabo badan iminka taagan weeyaan oo marka la dhoofiyo ama dekedaha waddankeenna laga dhoofiyo neefka dhakhaatiir baa joogta dhakhaatiirtaas way eegaan oo shirkadaha qaadanaya iibsanaya ayaa jeegareeya xanuunkii neefkii inuu xanuunsanaya in kale marka neefkay xanuun ku arkaan ma qaataan markaa dhaqaalaha halkaas ku burburaya dhankana dhaqaalihii ku burburayaayo qofkii markuu xanuunsado oo xanuunkii haleelo isagii ma shaqaysan karayo nacam uu dhantaalaya oo daily activity-giisii ama nolol maalmeedkiisii ma gudan karayo xaggaana uu ka iman karaa dhaqaalaha burburaya qodobka saddexaad waxyaabaha saamaynta dadban inagu leh ay noo keeni karaan ama dhibaatooyinka ay gaarsiin karaan waxaa ka mid ah inay ku fidaan bulshadii dhexdeedii oo xanuunkii aad bulshadii ugu faafo taana la xakamayn kari waayo oo dhaqaalo badan ku baxo ama waddankiiba da kari waayo markaa saddexdaa qodob ayaa ugu muhiimsan xagga dhibaatooyinka su-aasha u dambaysa haddii aan isku dayo jawaabteeda waxa weeye jawaabteedu sidee looga hortagi karaa xanuunadan lambar 1 waxa looga hortagi karaa animal health xayawaankii caafimaadkiisii gaar ahaan weliba nimcooleyda ariga geela lo'da waa in xanuunkoogii ama caafimaadkoogii laga warhayo oo dhakhaatiirtii loo yaqaanay dhakhaatiirta xanaanada xoolaha la hawlgeliyo oo dawladdu hawlgeliso oo xoolihii la baadho oo sidaa loola socdo oo neefkii xanuunsanaya intoo shaybaadh loo sameeyo la daweeyo ama karantiin waxa la yidhaha xoolaha kale laga soo dhex qaado oo meel gooniya la geeyo taasi waa taa waa in la ilaaliyo caafimaadkii guud qodobka labaad ee laga hortagi kara waxa weeyaan awareness education waxa la yidhaha in la sameeyo afka qalaad waa wacyigelin in la sameeyo loo wacyigelinayaa bulshada gaar ahaan waxaa loo wacyigelinayaa kuwa dhaqda xoolaha
waa in aad loo wacyigeliyo oo lagu wacyigeliyo xanuunada ku dhaca xayawaanka waa in la baro oo education loo sameeyo waxay yihiin sida lagu kala qaado neefka calaamadaha ka muuqanaya sidoo ula tacaalayo waa in aqoon uu yeesho qofka la baro qodob kale kaga hortagi karna waxa kamid ah personal hygiene qofku inuu nadaafadiisa ku dadaalo oo xoog ugu dadaalo personal haddii uu ka shaqeynayo tusaale ahaan goobaha caafimaadka oo kale inuu maaskiga xidho gloveska xidho nadaafadiisa kale ku dadaalo cuntada markuu karsanayo oo kale nadaafadeedii uu ku dadaalo oo isagii soo gaadhaysa moogtahay uu caanihii oo kale iska kariyo hilibkii oo kale xoog iska karkariyo markaa nadaafadiisii guud ahaan tii guud iyo tii gaarba oo nadaafadiisii qofku ku dadaalo hygiene-kiisii tii deegaankana uu ku dadaalo oo meesha hawgalayo xayawaanka iyo waxaas u soo dhawaano bisadaha iyo ayda iyo waxa uu iska fogeeyo si ayna u soo gudbin waxa kale oo lagaga hortagi karaa food hygiene in cuntada la ilaaliyo nadaafadeeda xoog loo ilaaliyo caanaha iska kariyo wax alla waxa caana la keeno ama lagu keeno bulshadu waa inay kariso sidoo kale hilibkii inaad isagana iska kariso marka inahaas ku soo koobi lahaa aad buu mahadsanyahay Dr. Nasuddin runtii guntiga gowgada barnaamijkeena ayaan ku shaqeynaa waa su'aash ugu dambeysay oo dabcan recommendation ka ahayd saddexdooda si waxaan u weydiinayaa toosa inay soo gaabiyaan oo ka codsanayaan ugu dambeyn maxaa bulshada la gudboon inay sameeyaan si loo ilaaliyo caafimaadka ugu dambeyn waa soo koobaynaa waxaan filayaa waqtiguna waa dheeraaday raalli baa naga ahaanaysaan waqtiga badan iyo saburka aad samayseen ardayda wax yar baa inoo haray waa gabagabo bulshada waxaa ka mas-uula dowladda ka mas-uula marka dowladda wasaaradda caafimaadka jaamacadda city code annagu waxaan rabnaa inaan iska kaashanno horeyna aan isaga kaashannay wacyigelinta bulshada aanna sii wadno marka talooyin baan aanu halka ku soo ururiyay dhowr talo oo recommendations waayo barnaamij marka la qabto waa in feedback ka soo baxo feedbacka ka soo baxay waa qoran yihiin waxaan la wadaagaynaa gudoomiyaha jaamacadda maadaama macallimiinta nahay hadduu yahay marka researchka qaybaha kala duwan iyo sida la isaga kaashanayana halkaasaanu ka ambo qaadi doonaa intaasaanu kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad baa mahadsantahay ugu dambeyn maxaa bulshada la gudboon inay sameeyaan si loo ilaaliyo caafimaadka deegaanka tan koowaad haddii ay dowladi jirto ay bulshadu haysato leadership iyo maamulka ayay la gudboon tahay inuu bulshada baro sida loo ilaaliyo deegaanka caafimaadkiisa iyo fayadhowrkiisaba haddii la waayo dowlad intaa qabata bulshadu waa inay heshaa waxaan oran karnaa nebiyadii waqtigooda u dhammaaday soo maaha waxaa loo baahan yahay dad u naxa bulshada waxaana tusa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka iman karta deegaanka haddii aan la dhowrin haddii aan la ilaalin caafimaadkiisa marka taa laga yimaado waxaa soo hoosgelaya in bulshada ay hesho qof ama dad advocacy ah dad ka soocan oo u kulul ama dareemaya ciladaha iyo dhibaatooyinka deegaanka ka imanaya waxay u baahan yihiin inay la yimaadaan initiative and community engagement bulshada sida hadda kulankan oo kale in la yimaado bulshada la wacyigeliyo wacyigelinta aad loogu dadaalo ilaa inta ay bulshadu ka hagaagayso wax ka baranayso maadaama ayna haysan wax la yiraahdo dawlad fiican oo awood leh oo wasaarad deegaan oo awood leh oo shaqeynaysa oo wax ku qabanaysa maadaama ayna haysan waxaan u baahanahay bulshadeena inay inagu sidhisno oo la badiyo hadda kulanada noocan oo kale oo jaamacado ka qayb qaataan inta ayaan kusoo koobiyaa aad buu maastaa maxamed jibriil ugu dambeyn doctore maxaa la gudboon bulshada si ay iskaga ilaaliso xanuunadan uga imaanaya xayawaanka guntiga gabagabadii anu waxaan ku soo gabagabayn lahaa ama bulshada aan ku boorin lahaa in la ilaaliyo xoolaheena caafimaadkooda aad loo ilaaliyo oo laga warhayo neefkii xanuunsanaya xoolaha kale laga soo saaro la kaaraantinimeeyo ama la daweeyo intaa marka la dhaafo haddii lagu keeno oo caanihii magaalooyinka inoogu yimaadaan hilibkii iyo caanihiiba in la iska karkariyo oo si fiican la iskaga kariyo marka la isticmaalo ta saddexaada ugu dambaysa dadka ka shaqeynaya goobaha caafimaadka inay is ilaaliyaan oo gloveska xidhaan ama afsaarka ama maaskiga waxa loo yaqaano oo nadaafadooda ay ku dadaalaan
aad baa mahadsantihiin dhammaantiin waan idinka mahadcelinayaa runtii su'aal baqabta bismillaah anigoo magacayga ku bilaabaya ibraahim maxamed usmaan kulliyadda adeegtana waa clinical su-aasha koowaad waxaa weeye cudurrada faafa iyo cudurrada aana faafin keebaa khatar badan su-aasha xigtana waxaa weeye oo waxaa la yani xayawaanaadka oo cudurrada soo gudbiyaan sida bisada iyo eega waxay ku soo gudbaan aan lahay qaniyada eega horta waa la gartay dee dadka lama dhex noolo laakiin bisadu dadkiiba la dhex nooshay xaafadii bay joogtaa bisadaas haddii xanuunsantaa aba dhaawac aba nabar uu ku yaalo cudurradu ma ka soo gudbaan iyadagana waa mahadsantihiin meeshaaga bax waxay ku kooban tahay dhakhaatiirtoo dhan soomaalideenna badanaa wax kasta waynu leenahay oo yaqaana wax kasta oo dhakhtarnimada khuseeya maxaa sababa badanaa dadkeennu inay dibadda u doontaan inay dhakhtar u aadaan inagoo haysanna dhakhtar wixii yaqaana waa mahadsantihiin raxiim cudurrada faafa iyo kuwa faafay kuwadu khatar bay leeyihiin laakiin kuwa faafa baa khatar badan tusaale yar baa idin siinaya coronavirus waa garanaysaan 2019 dabaqadeedii buu dhacay 2020 buu bilaabmay adduunka waa ognahay pandemic buu ahaa intaasoo kun oo qof baa ku dhintay xanuunada kaleeto ma laha dhibaatada waliba xanuunada waa viruska ugu khatarsan kuwa hadeertan jira oo la ogyahay xogta lagu hayo haddii aan ka jawaabo su-aasha ardaygu la weydiiyey xayawaankii guryaheena ku noolaa ama meelaha u dhowdhow sida bisadoo kale ama eygoo kale xanuunkii sideen iskaga ilaalin karnaa waxaan iskaga ilaalin karnaa ugu horrayn inaan inagu ku dadaalno nadaafadda deegaanka waxaan ka wadaa deegaanka guriga aad galayso ama meesha aad seexanayso ama meesha waxaad ku cunayso inaynu soo dhowaanin tusaale ahaan qolka hurdadaada ama qolka aad gasho adu ama guriga aad gasho bisadii inay kula dhex deganaan gurigaagu wuxuu leeyahay daarad ama barxad buu leeyahay barxaddaa meel ay galaan uga dhis haddii ay xanuunsadaan oo iyagii xanuunsadaan waa noole xuquuq buu leeyahay waa in ay jiraan dhakhaatiirtii daweynaysay dhakhaatiirta veterinariska loo yaqaano ayaa xanuunada ogaado oo baadho waa la daryeelaa oo waxay ka mid yihiin deegaankeenay ka mid yihiin oo waa in iyagaba la daryeelo ama neefkii xanuunsanayey xanuunkii la baadho la ogaado dawadiisii saxdii la siiyo oo sidaa loo daweeyo intaa uu bogsanayo ama xanuunka uu hayana waa in xoolaha laga dhex saaro oo la kaaraantinimeeyo oo meel gooniya lagu baxnaaniyo markuu uu bogsado ama in xaaladiisu dhan u dhacayso aanan xoolin lagu sii deynin markaas siyaabahaasaan iskaga eegi karnaa aad iyo aad buu mahadsanyahay doctor nasrudiin guud ahaan barnaamijkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa ujeedka barnaamijkan saan hore kuu sheegay wuxuu ahaa in la helo fursad lagu horumarinayo caafimaadka bulshada in la kordhiyo wacyiga ku saabsan muhiimadda caafimaadka bulshada ee deegaanka iyo xayawaanka iyo sidoo kale ardadana aad buu mahadsanyahay